xaaladda deegaanadii shalayto lagu dagaalamay ee koonfurta magaalada Laascaanood oo ilaa 45 kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xigta magaaladaasi Laascaanood saaka way degantay sida wararka aan la xiriiray gudaha gobolka Sool iyo deegaankaasiba ay ii sheegayaan dhimashada iyo dhaawacu ay sii kordhayaan oo haatan dhimashada waxa ay gaadhaysaa ilaa 50 in ka badan oo dad baa u dhintay ilaa xalayto dhaawacuna waa uu ka badan yahay ilaa 85 sida wararka aan ku helayo gudoomiyaha gobolka Sool Cabdirashiid Xuseen Cabdulle waxa uu goor dhawaynta inaan idaacada soo galin uu ii sheegay in waxa talaabo qaadeen aan weydiiyay wuxuu ii sheegay in ay bedelayaan natiijadii hore waa sidoo hadalka u dhigay oo talaabo ciidan oo xoogan oo aanu haatan ka hor dhacayn oo iqaayaan xukuumaddu waxauna uu sheegay in la daweynayo wix talaabo loo fidin karo gargaara dhaawacana ay socoto wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Xasan Ismaaciil isna goordhaweyto waxa uu ii sheegay in daawo iyo gargaar ku filan haatan ay yaalaan cisbitaalka magaalada Laascaanood isla mar ahaantaasina waxa la leeyahay wixii daawo iyo dhaqaatiir iyo caafimaad ah ee ay u baahdaan markaasi diyaar loo leeyahay oo la xoojinayo oo arinta isha ay ku hayaan oo intaasi ilaa xalayto aanay ka seexan marka inahaasi ayaa jira in baaqiyo fara badan baa soo baxaya culimada haday tahay iyo haday tahay madax dhaqameed haday tahay xukuumadda Soomaaliland ba la leeyahay waa in xabada la joojiyaa waa in aqligu uu shaqeeyaa waayo dagaalkan uu soo noqnoqday ilaa 2004 oo ay dagaalamayeen labadan beelood ee ku dagaalamaya deegaankaasi dhumaya deegaano kale oo koonfurta gobolka Sool wuxuuna yihiin qabiil iyo deegaan beri hore ay ka bilaabmeen waxaana ugu dambeeyay dagaal 2 bilood ka hor dhex maray oo 22 qof ay ku dhinteen 60 ay ku dhaawacmeen dabadna heshiis la soo dhex dhigay laakiin haatan ay u muuqato heshiiskaasi inuu jabay